maalinta soddonaad arrimaha lacagta. macbuudka quduusan ee Yerusalem wuxuu noqday xarun ganacsi intii uu noqon lahaa goob cibaado. shan lix todoba sideed toban kow iyo toban laba iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban todoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan kow iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan. way qoran tahay gurigayga waa inuu ahaada guri lagu cibaadaysto laakiin waxaad u beddesheen goob tuugo. wuxuu ku sii jeedaa xoolahayga. jooji isaga. ilaalada igu yeera. mucaaradka ayaa ku sii kordhayay siyaasiyiinta iyo madaxda diimaha qaarkood, waayo dadku waxay ku andacoodeen inuu sayid ciise yahay boqor. sayid ciise wuxuu waday inuu canaanto caalimiinta sharciga nabi muuse iyo culimmada diimaha kale, waayo ilaah sharcigiisa ayay dadka barayeen kumana dhaqmaynin. intuu macbuudka dhexdiisa joogay ayaa wuxuu arkay carmalad maskiin ahayd oo laba sumani ku ridaysa sanduuqa sadaqada. waxaan idin leeyahay carmada masaakiinta waxay dhiibtay wax ka badan kuwa kale, waayo dadkan oo dhan hantidooda badan ayay wax ka sadaqaysteen, laakiin masaakiin ha ahaatee wixii yaraa ay lahayd ayay sadaqaysatay. kow, sidee ayuu dhaqanka ciise masiix iigu yahay caqabad? labo, sidee ayay lacagta u leexin kartaa rabitaankayga inaan si sax ah ula noolaado ilaah? saddex, waa maxay muhiimaddayda bixinta iyo helidda lacagta?